guux siyaasadeed iyo mooshinno iska soo horjeeda oo magaalada Muqdisho gilgilay. Xilka qaadis ayaa la qorsheynayaa haddaba ay ku wajahan tahay abaabulka mooshinno iska soo horjeeda oo saacadihii ugu dambeeyay xoogeystay ee magaalada Muqdisho ka socda. Burcad weerartay bogga Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale aanu idiin soo gudbin doonaa haddaba maxaa lagu soo qoray baraha internetka gaar ahaan bogga Instagram ee madaxtooyada Soomaaliya oo saacado kooban ka hor la jabsaday. Taliska booliska magaalada Beledweyne waxa ay ka jawaabeen eedayntii ka timid gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan kaasi oo ku eedeeyay dayacaad dhanka amniga ah kadib qaraxyadii isxigxigay ee ka dhacay magaalada Beledweyne. waa barteena YouTube-ka ee halbeegga wararka iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aanu idiin soo gudbinayno. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar barteena YouTube ee halbeegga wararka adigoo muuqaalkan like saaraya isla markaana la wadaagaya saaxiibada si dad badan u gaaro. waa hagaag daawadayaal ugu horreyntii haddii aynu ku bilaawno booliska gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa ka jawaabay eedayn kaga timid gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ku eedeeyay taliyayaasha booliska iyo nabad sugidda inay ka soo bixi waayeen hawshii loo igmaday oo ahayd xuuraanka iyo soo gudbinta siraha si looga hortago dhibaatooyinka dhici kara. gudoomiye Jayte oo sii hadlayay ayaa carabka waxa uu ku dhuftay in isaga uu in muddo ah duurka ku jiray si uu la dagaalamo kooxda Al-Shabaab laakiin aanu garanaynin waxa taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska ee qaybta ay qabanayeen marka weerarka isqarxinta Beledweyne lagu soo qaadayay. magaalada Beledweyne ayaa isniintii aynu ka soo gudubnay ee toddobaadkan waxaa ka dhacay weeraro isxigxigay oo qaraxyo ah kuwaasi oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka Hiiraan, dowlad goboleedka Hiirshabelle iyo dad rayid ah. waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhintay saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya. weerarkaasi waxaa sidoo kale dhaawacay ay ka soo gaareen tiro dad ah oo gaaraya ilaa 100 ruux waxaana uu ka codsaday dowladda Soomaaliya in labada taliye ee qaybta booliska iyo nabad sugidda gobolka Hiiraan iyo Beledweyne ay ku sameeyaan baaritaano maadaama ay dayaceen mas'uuliyaddii loo igmaday oo ahayd inay xaqiijiyaan amniga. sidoo kale gudoomiye Cali Jayte ayaa waxa uu dowladda federaalka iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ka codsaday in gargaar bani'aadanimo oo degdeg ah lala gaaro dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada gobolka Hiiraan ee dhawaan Al-Shabaab ay kala wareegeen. dhanka kale taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan ayaa ku gacan seeray eedaynta gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee ah in isaga iyo taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka ay ku guuldareyseen ka hortagidda qaraxyadii isniintii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada Beledweyne. Isaaq Cali Cabdullaahi taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan ayaa dhankiisa waxa uu ku eedeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte in uusan qaadan talooyinka dhanka ammaanka ah oo ay boolisku soo jeediyeen. taliyaha booliska qaybta gobolka Hiiraan oo wareysi siinayay idaacadda BBC-da qaybteeda Soomaalida la hadasha ayaanan si gaar ah u caymin xogaha sirdoon oo ay la wadaageen gudoomiyaha gobolka ee uu ka gaabiyay balse waxa uu sheegay in iyaga ka mas'uuliyad amni ahaan aysan gabin howlahooda taa beddelkeeda se uu gudoomiyaha gobolka isaga dayacay amniga gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweyne. sidoo kale saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay eedeymo iyo sidoo kale hadallo jawaab celin ah oo ay siyaasiyiinta gobolka Hiiraan ee ka soo kala jeeda beelaha dega bariga iyo galbeedka Beledweyne isku marinayeen baraha internetka iyo warbaahinta qaar. barqanimadii maanta Cali Jayte oo shir jaraa'id ku qabtay Beledweyne ayaa waxa uu markaa dhaleeceyn iyo sidoo kale xil gudasho la'aan ku eedeeyay taliyayaasha qaybta nabad sugidda iyo booliska gobolka Hiiraan. Daahir Amiin Jeesow oo ah xildhibaanka beesha degta galbeedka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in Cali Jayte uu markaa iska horkeenayo dadka halka wada degaa. waxaa xigay qoraal uu madaxweynihii hore ee Hiirshabelle Cali Cosoble soo dhigay bartiisa Facebook isagoo sheegay in Daahir Jeesow xildhibaanka beesha Gaaljecel uu wax badan ka og yahay qaraxyada ka dhacay gobolka Hiiraan balse waxa uu su'aal ka keenay in maalinka aakhiro Jeesow uu heli karo xasaanad. wixii xilliga ka dambeeyay waxaa soo batay siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta labada beel ka soo jeeda ee jawaab celinta isku dhaafsanaya baraha bulshada. dhanka kalena magaalada Muqdisho waxaa saacadihii ugu dambeeyay si aad ah looga dareemayay hadal haynta mooshinno iska soo horjeeda oo ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. kalfadhiga labaad ee golaha shacabka marka uu furmo dabayaaqada bishan Oktoobar ayaa waxaa la soo warinayaa in uu la kowsan doono mooshinno kala duwan oo laga keeni doono xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adaha fulinta sida madaxtooyada Soomaaliya.
xogta ilaa iminka la ogaaday ayaa waxa ay sheegaysaa in 25kii Agoosto markii la xiriyay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka ay jireen kulamo kala duwan oo xubno ka mid ah baarlamaanka ay ku yeelanayeen Nairobi, Muqdisho iyo Ankara waxa ayna ka wada hadlayeen mooshinno laga diyaarinayo xukuumadda. wararka qaar ee aanu helayno ayaa waxa ay si hoose u xaqiijinayaan in mid ka mid ah mooshinada iska soo horjeeda la doonayo in xilka looga tuuro gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar waxaana intaa kadib la qorsheynayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre isna mooshin laga soo gudbiyo. wararka la ogaaday ayaa waxa ay sheegayaan in mooshinadaas loo xil saaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Abshiro waxaana jiri doona dhaqaale ee dowladda Carbeed doonayaan inay ku bixiyaan dhaqangelinta istiraatiijiyadda la dejiyay iyo in meel mar laga dhigo mooshinadaasi la soo gudbiyay. afhayeenka golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa muddooyinkii dambe fasaxa baarlamaanka ku jiray waxa uu kulamo gaar ah la qaadanayay madaxda dowladda iyadoo khilaaf hoose la sheegay in uu ka dhex jiro isaga iyo agaasimaha hay'adda NISA Mahad Salaad. mooshinada la diyaarinayo ayaa xitaa gudoomiye Aadan Madoobe la rabaa in daaqada looga saaro balse waxa uu ka feejigan yahay wax kasta oo dhankiisa tallaabo loo soo qaadi karo isaga oo sameystay baa la yiri tiirar difaaci kara isla markaana ka difaacaya mooshinada la doonayo in lagu soo weeraro. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Abshiro ayaa la hordhigay dalabka ah in uu majaraha u qabto mooshinadaasi haddii uu diido in uu la wareego gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe waxaana ugu horeyn in laga tuuro xilka la rabaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Sacdiye Samatar. xogaha kale oo aan helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in Sacdiya oo ka war heshay mooshinka la doonayo in xilka looga tuuro ay baalal ay ku duusho ka dhex samaysanayso baarlamaanka gudihiisa si ay codka kalsoonida ugu diidaan marka ay howshaasi mooshinka ah la dhex keeno golaha shacabka iyadoo dhanka kalena garab weydiisatay ururada haweenka iyo hablaha siyaasadda ku jira ee hay'adaha dowladda qaybta ka ah. shir ka dhacay magaalada Nairobi isbuucan aynu ku guda jirno ayaa waxaa lagu go'aamiyay in sida la qorsheeyay hawshu u dhacdo waxaana arrintan shaqada kala socda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo qudhooda wajahaya culaysyo iyo cabsi baarlamaanka lagu kicinayo. mowjadaha siyaasadeed ee bishan Oktoobar la kowsan doono golaha shacabka iyo mooshinada la diyaariyay ayaan la ogeyn sida ay kaga gudbi doonaan xubnaha lala rabo in lagu rido isla markaana xilka looga tuuro. xogaha qaarkood oo aanu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu la kulmi doono dagaal siyaasadeed oo ka baaxad weyn midkii uu Xasan Cali Khayre xukuumaddiisa lagu riday sanadkii 2020 waxaana golaha shacabka uu yahay mid ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafad balse waxaa hadda muuqanaya in xisbiga madaxweyne Xasan Sheikh looga sii adkaanayo marka la joogo codka kalsoonida ee baarlamaanka Soomaaliya. ilaa iminka lama oga dowladda dhaqaalaha ku bixinaysa mooshinada laga bilaabayo golaha shacabka marka uu furmo kalfadhiga labaad iyadoo dadka qaarkood ay isweydiinayaan xilligan waxa ku soo aadiyay jahwareerka siyaasadeed iyadoo wadanka uu ku jiro marxalad dagaal oo la rabo in al-shabaab looga xoreeyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya oo ay maamulaan. وهاجاك داوديال ugu dambeyntiina burcad dhanka internetka ah ayaa jabsaday barta Villa Soomaaliya ay ku lahayd aalada internetka ee Instagram waxaana lagu baahiyay muuqaalo lagu mucaaraday dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa bogga lagu soo daabacay in uu la wareegay wariye lagu magacaabo Maxamuud Carab oo ka tirsanaan jiray wariyaasha warbaahinta Muqdisho kaasi oo iminka ku nool mid ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. bogga oo ay saaran tahay calaamadda xaqiijinaysa in uu yahay bogga rasmiga ah ee Villa Soomaaliya ee Blue Tick ayaa waxa lagu baahiyay muuqaal uu iska soo duubay Maxamuud Carab kaasi oo lagu dhaleeceynayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Maxamuud Carab ayaa waxa uu ka mid ahaa wariyaal ay Muqdisho ku xirtay dowladda Soomaaliya muddaxileedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana caradii uu xilligaasi qabay iminka sii xogeysatay waxaana uu ka mid ahaa dadka sida aadka u taageera dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay. bogga Instagram-ka ee Villa Soomaaliya oo ay ku xiran yihiin dad ka badan 37,000 oo ruux ayaan la ogeyn cidda fududeysay in la jabsado iyadoo arrintani ay wajigabax iyo cayb ku tahay waaxda warfaafinta ee madaxtooyada oo gacanta ku haya bogagga Villa Soomaaliya ay ku leedahay baraha bulshada. guud ahaan daawadeel wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya xilligan waanaga inta haddii aad nagu cusubtahay subscribe inoo saar bartan YouTube-ka halbeega wararka adigoo muuqaalkan like saaray lana wadaagay saaxiibada inta barnaamijyadeedkan kiisa xiga aan ku kulmi doono nabadgelyo.